بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan ah what is a financial stress waxaan ku qeexi karnaa financial stress inay tahay xaalad maaliyadeed oo adag oo ku sugan yahay shakhsi ama shirkad xaaladda adag qofkii ama shirkaddii awood uma lahan inuu bixiyo lacagtii lagu lahaa ama laga sugayay midda oo keeni karta defaulting hadda ka hor ayaan ka soo hadalnay micnaha credit default ee fadlan ka dhigayso lifaaq hoose haddaba xaaladda culus ee lacageed waxaa keena walxa kala duwan oo ay ka mid yihiin deyntii oo kugu badatay dakhligaadii oo hoos u dhacay ama inay kugu culus tahay inaad maaraysid lacagta ku soo gasha dhaqaale xumo ka jirta waddanka ama maamulkii shirkadda oo karti iyo aqoon xumo haysata iyo wixii la halmaala si aan iskula fahanno qeexiddan aan isla aragno tusaalahan aan dhahno warshad soo saarta maacuunta waxa ay wajahaysaa xaalad adag oo kaga timid tartankii suuqa oo batay baahidii loo qabay alaabteedii hoos u dhacday middaasna waxa ay dhalisay in dakhligeedii uu yaraado iyo inay soo deynsato lacag si ay u sii wado howlaheeda kala duwan haddaba si ay warshadda uga baxdo xaaladdan maaliyadeed ee adag waxay ku qasban tahay inay la timaado qaabab ay ku yarayn karto qarashaadkeeda in dib u habeyn lagu sameeyo qaabka ay warshadda u shaqayso iyo inay raadiso maalgelin cusub oo ay bixiso saamiyaal iyo wixii la halmaala oo haddii aysan xaaladda ay ku sugan tahay wax ka bedelin waxaa ka imaan karta in shirkaddii ay burburto ama la iibiyo gunaanad xaaladda culus ee maaliyadeed oo soo wajahda shakhsiyaadka iyo shirkadaha waxa ay wiiqdaa awoodda ay ku bixin lahaayeen lacagihii laga sugayey waana lama huraan inay la yimaadaan istaraatiijiyadii ay ku xallin lahaayeen inta aanay xaaladda sii adkaanin waxaana ka mid ah qaabka loo xalliyo in la sameeyo business restructuring oo aad ka heli kartid micnaha lifaaq hoose mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo